banaanbaxan oo ay ka qayb galeen dhammaan qaybaha kala duwan ee bulshada ayaa waxa uu ka dhacay meel kala duwan oo kamid ah magaalada Muqdisho iyadoo banaanbaxayaashuna ay wateen boorar ay ku qoran yihiin erayo ka turjumayay doonista dadka Soomaaliyeed ee ku aadan in la joojiyo gabi ahaanba faragelinta caadada noqotay ee lagu hayo had iyo goor sida ay banaanbaxayaashu qabeen arrimaha dalkan Soomaaliya banaanbaxayaashan oo ay ka muuqatay caraq xoogan ayaa sidoo kale waxay gubeen taayaro iyagoo joojiyayna isu socodkii gawaarida dadka rayidka ay isticmaalayeen ee u kala gooshayay wadooyinka magaalada Muqdisho iyagoo xirayna wadooyinka soo gala xarunta madaxtooyada ee Villa Soomaaliya dadka banaanbaxayay oo isirtaag ku sameeyay gawaarida isticmaalaysay wadooyinka soo gala xarunta madaxtooyada iyagoo waliba wata dhagxaan iyo ulo ayaa waxay ku guuleysteen inay saacado door hakiyaan gaadiidkii ku kala soconayay wadooyinka ka kala yimaada ceelgaab sayidka iyo waliba wadada xawataako ee soo hormarta SYL waxayse banaanbaxayaashu taageerayeen oo ay waliba u sacabtumayeen kolka ay soo maraan wadooyinkaasi gaadiidka ciidamada qalabka sida gaar ahaan kuwa xoogga dalka iyo booliiska oo aad moodo iyaga laftooda inay banaanbaxayaashu qayb ka ahaayeen maadaama ay u muujinayeen ciidamadu taageero dadweynihii banaanbaxayay qaar kamid ah dadkii caraysnaa ee maanta banaanbaxayay shucuurtoodana muujinayay oo ay ku jiraan kuwa curyamo ah oo dul saarnaa baaskiilo ayaanu la kulanay kuwaas oo aanu weydiinay bal waxa ay doonayaan iyo waxa ay diidan yihiin wixii ka soo horjeeda nabadda wixii ka soo horjeeda diidana waxaan diidanahay maamulka dibadda lagu soo lacagta la siisaayo Soomaalida la kala gadaayo oo wax walba ee qaranka in lagu dumiyo la rabo ayaan diidanahay ma ogolin haddana dadweynaha Soomaaliyeed haddana ciidamada dalka Soomaaliyeed haddana waxaan rabnaa nabad waxaan u dagaalamo waynaa nabad Soomaaliyeed waxaan u dagaalamaynaa gobonimo wax walba wixii Soomaali nabad ka dhalihayaan taageersanahay annagu ma taageersanin dollar haysta naftayda maalkayga ku weyn gooraan ku dhaawacno hadeerna dhaawac ka soo bax banaan bixin nabadeedaan ku dhaawacbay hadeerna waxaan diyaar u ahay in Soomaaliya nabad hesho in dadweynaha Soomaaliyeed nabad helo in caruurta iyo hooyooyinka wax walba kumaadka lagala helo nabadda waxaa ka soo horjeeda Shariif Sakiin iyo xulufyada oo wato mana doonayno gudoomiyaha majmaca culimo diinka Soomaaliyeed Sheekh Axmed Cabdi Dhacisow oo kamid ah dadkii banaanbaxan ka hadlay ayaa isagu waxa uu qabaa inay Soomaaliya ku dhacday nasiib darro mar haddii aan la garoosanayn lana ogolayn rabitaanka shacabka Soomaaliyeed go'aanada ka soo baxay kambana waxay ka dhigan yihiin Soomaaliya xur maaha Soomaaliya dibadda looga taliyaa waxaa taladanadii la wareegay shacabka Soomaaliyeed qaatay ajnabi oo si dulmi ku qaatay iyo tabdilif ajnabiga raashidaal qaatay cadowga Soomaaliyeed ka awaamid qaatay taasana diidanahay annaga waxaan ka soo horjeednaa mu'aamarada uu samaynayo gudoomiyaha baarlamaanka shaqo kuma leh adduunkana kama jirta qaanuunkana meel lama dhigna in ra'iisul baarlamaan oo dowlad soo dhiso oo dowlad wax ka qaybsado waa dulmi waxaan ka soo horjeednaa in barnaamijka shacbiga Soomaaliyeed rabitaankiisa iyo taageeradiisa inuu iscasilo ayaan diidanahay waxaan ka codsanaynaa inuu ka naqdo shacbiga Soomaaliyeed waxaan hadnahay culimadiisa odayaasha dhalinyarada ciidamada qalabka sida haweenka ayaa ku garab taagan
banaanbaxan oo si iskooda ay dadkii dhigayay isu soo abaabuleen ayaa yimid kadib markii ay soo ifbaxeen saaka warar sheegaya in laga yaabo inuu iscasilaad ku dhawaaqo ra'iisul wasaaraha dowladda Soomaaliya cadaadiskaas oo ku yimid faragelin ka timid wadamo la tuunsan yahay balse aan la carabaabin dadka careysan ayaa maanta ku muujinaya sida weega soo horjeedaan waxa ay ugu yeereen faragelinta shisheeyaha ee ka dhanka dowlad wanaagga Soomaaliya iyagoo dhanka kalena si aad u taageersanaa ama muujinaya taageerada u hayaan ra'iisul wasaare Maxamed Cabdullaahi Farmaajo عبد النور مودي تلفزيون كقرنك مقدش